kulanto waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu door corona galka warkan waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan xukuumadda Khayr oo banaanka soo dhigay arrimo aysan wax badan madaxda federaalka Soomaaliya lagu baran in ay daaha ka rogaan warbixin xasaasi ah ayaan idinku soo gudbin doonaa waxaan idin haynaa meesha lagu bixin doona 42 milyan ee midowga Yurub la saxiixdeen Soomaaliya ma laga yaabaa lacagtaasi in ay ku dhacdo gacmo musuqmaasuq mid ka mid ah taliyaasha saldhigyada booliiska gobolka Banaadir oo la yahay waa kuma taliyahaasi maxaa keenay inuu baxsado warka ayaad kaga bogan doontaan waa kuma ninka laf dhuungashi ku noqday madaxweyne xaaf ee uu maamulkiisa ka dhaqaaqay akhbaaraadka dibaddana waxa ugu dooroon dambiyo culus oo lagu soo rogay madaxweynaha Suudaan waxaan idin haynaa faahfaahinta eedahaas qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan galka wararka haddii aad ku cusubta daawada waxaad saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqa iyo xogtii ugu dambeysay Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay shirkii maalmihii ugu dambeeyay oo la hadalhayay oo madaxda maamul goboleedyada la filayay inay ku yeeshaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa isaga oo dadweyne la hadlayay waxa uu sheegay in dalka Soomaaliya ay leeyihiin dad Soomaaliyeed oo u fikiraya waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dhibayso in madaxda maamul goboleedyada ay ku shiraan meel ka baxsan Soomaaliya wuxuuna si gaar ah u sheegay in ay ku shiraan dal uu xiisad siyaasadeed kala dhaxeeya Soomaaliya wasiirka waxa uu sidoo kale sheegay in madaxda maamul goboleedyada ay leeyihiin magaalooyin ka wanaagsan Nairobi oo shirkooda ay ku qabsan karaan balse ujeedada kale ka dambaysa in ay Kenya ku shiraan wayna dhibaysaa markaan aragno maamul goboleedyada oo ninkii budka u noo haystay gurigiisa ay ku shirayaan meel ay ku shiraan ma weynin laakiin haddana waxaan kor u qadqaadayno ma aha mar ayaa caqli u soo noqon doona oo gurigooda ay ku shiri doonaan ayuu yiri wasiir Goodax 100 meelood oo ka wanaagsan ayay qabaan waxay meesha ugu shirayaan waxaan isleeyahay waa un qaab darro ayaan isleeyahay wadankan waxa iska leh Soomaaliya iyaga u adeegaya iyaga u shaqaysanaya iyaga ayaana ka shaqaysan doona ayuu yiri wasiir Goodax shirkii maamul goboleedyada ay ku lahaayeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa gabi ahaan baaqday waxaana la sheegayaa inay soo kordheen culays kale wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo shalay magaalada Muqdisho ku saxiixay 42 milyan oo euro oo midowga Yurub Soomaaliya uga caawinayaan ayaa sheegay in lacagtaasi lagu fulin doono mashaariic waaweyn oo ay ka mid yihiin dib u dhiska wadooyinka dalka dhaqaalahan ayaa lagu dhisi doonaa kaabayaasha dhaqaalaha dalka gaar ahaan dib u dayactirka wadooyinka muhiim u ah isu socodka wadanka wadooyinka lagu dhisi doona ayaa waxaa ka mid ah jidka degmada Luuq ee gobolka Gado wadada Gaalkacyo Garoowe wadada xiriirisa Gaalkacyo Hobyo iyo kuwa kale oo sidoo kale wadooyin kale la dhisi doona ayaa waxaa ka mid ah wadada isku xirta Boorama iyo Djibouti oo ka mid ah marinada muhiimka ah wasiirka qorsheynta Soomaaliya ayaa sheegay in dawladdu ay ku dadaali doonto sidii mashaariicdan ay u noqon lahaayeen kuwa u fula sidii loogu talagalay isla markaana laga doorsugi doono musuqmaasuq iyo wax isdabamarin xooggan warar soo baxay saacadihii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in uu baxsaday taliyihii saldhigga degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir taliyaha oo ku jira dad loo haysto dilal ka dhacay degmada Xamarweyne ayaa la ogeyn ilaa iyo hadda meel uu cirib iyo jaan dhigay waxaana isoo taraya wararka arrintaasi ku saabsan saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in muddo laga joogo 72 saac la yahay taliyihii saldhigga degmada Xamarweyne waxaana la ogaaday inuu ka baxsaday magaalada Muqdisho ee guud ahaanba Soomaaliya wararka ugu badan ayaa sheegaya in uu u baxsaday dalka Kenya halka qaar kalena ay sheegayaan inuu u baxsaday dalka Turkiga qaar ka mid ah dadka aan la hadalnay ayaa sidoo kale sheegay inuu u baxsaday dalka Itoobiya caasimadda Oyland oo la hadashay xubno ka tirsan maamulka degmada Xamarweyne ayaa waxay xaqiijiyeen inay xaqiiqo tahay baxsadka taliyaha balse aysan xaqiijin karin halka uu baxsaday Ahmed Qadar oo la magacaabay 24kii bishii Maars ee sanadkan ayaa wuxuu ka mid yahay saraakiil iyo mas'uuliyiin loo haysto isku dhacyo bishii Ramadaan ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir oo ay ku dhinteen dad shacab ah iyo askari ka tirsanaa militariga Soomaaliya
dhacdada ka dhacday degmada Xamarweyne oo meelo badan saameysay ayaa la sheegay in dad badan ay uga carareen dalka oo uu ka mid yahay agaasimihii maamuuska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmo ka hor arintaasi guddi loo magacaabay kuwaas oo soo baari doona sida ay wax u dhaceen. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa tan iyo markii la doortay wuxuu ka dhamaan waayay khilaaf iyo dagaal siyaasadeed oo u gaar ah maamulkiisa iyo midda uu la qabo dhammaan maamul goboleedyada kale. Xaaf dagaalku ku jiro waa mid ka adag midka ay ku jiraan madaxda maamul goboleedyada kale ee dalka, wuxuuna maamulkiisa ku reebay raad xun oo ay adag tahay sida loogu soo kabsado. khilaafka ugu weyn waxa uu kala dhaxeeyaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu waayay ku-xigeenkiisa ee gudoomiyaha baarlamaanka sanado ka hor, kuwaas oo noqday khatarta ugu weyn ee madaxweyne Xaaf maadaama dowladda ay u soo weerari karin maamulkiisa balse ay u soo martay raggan. Wararka warbaahinta ayaa tibaaxaya in madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabe uu yahay khatarta ugu weyn ee Xaaf. waxyaabaha ay ogaatay warbaahinta waxaa ka mid ah in Carabe uu ku guuleystay baajinta dhammaan heshiisyadii uu galay madaxweyne Xaaf. heshiisyada la baajiyay ama socon waayay uu madaxweyne Xaaf galay dhammaantood waxay ahaayeen kuwa dibadda ah oo ay la saxiixdeen hay'ado shisheeye iyo dawlado kale. Carabe ayaa sidoo kale la sheegay inuu helo dhammaan xiriirada hay'adaha shisheeyada la gala madaxweyne Xaaf kadibna uu baajiyo waxyaabihii lagu heshiiyay. madaxweyne Xaaf ayaa abaabulay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo aan ahayn Cali Gacal Casir balse uu ku dhiiran doorashada iyo xilka qaadista madaxweyne ku-xigeenka Galmudug, waxaana sababta lagu sheegay in uu weli rajo ka qabo in laga baajiyo dabagalka uu ku hayo Carabe. Carabe ayaa sidoo kale burburiyay go'aano badan oo dowladda Soomaaliya ka qaatay madaxweyne Xaaf. Umar Xasan al-Bashir ayaa lagu soo eedeeyay inuu ku kacay musuqmaasuq xooggan iyo wax isdabamarin ballaaran. eedeymaha ayaa waxaa ka mid ah lunsasho hanti dadweyne iyo soo rogidda amar degdeg ah oo la soo rogay sida uu sheegay xeerlaaliyaha, mana bixin faahfaahin intaa ka badan. militariga ayaa xilka ka tuuray markii ay la xaasadeen banaanbaxyada ka dhanka ah xukuumadda al-Bashir oo muddo dheer ka jirtay dalka Suudaan. u hadlay militariga Suudaan ayaa Khamiistii sheegay in qalad uu dhacay markii ciidanka isku dayeen in ay kala ceeriyaan dibadbaxayaasha dalbanayay inuu xukunkii rayidka la soo celiyo. howlgallada ayaa dhacay 3 bishan Juun 61 ayay militarigu sheegeen in ay ku dhinteen. dhaqaatiirta dalka Suudaan ayaa sheegay in 118 qof ay ku dhinteen iska hor imaadyada ciidanka iyo banaanbaxayaasha. madaxweyne al-Bashir ayaa xilka laga tuuray 11 bishii Abriil sanadkan kadib bilo dibadbaxyo ka dhan ah xukuumaddiisa. bishii May ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuu sameeyay kicin dadweyne iyo inuu lug ku lahaa dilal dad shacab ah oo cabashadooda soo bandhignayay. hogaamiyaasha banaanbaxayaasha ayaa waxay sameeyeen in shaqo joojin lagu dhawaaqo guud ahaan dalka, ha yeeshee waxaa ugu dambeyn dib loo soo celiyay wadahadaladii u dhaxeeyay dibadbaxayaasha iyo militariga Suudaan. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya daawadayaal warkii aad ka daawanayseen galka wararka. intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.